one came to see. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا السلام يا صحابتي قالي ميل كستا adduunka aad kaga sugan tihiin aad baan idin salaamaya waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan meel kasta adduunka aad ka joogtaan soo dhawaada oo mar kale iyo miskiintiina yareed waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan asxaabta qaaliga ah video baan maanta idin wada asxaabta qaaliga kale anigu aan ku qoslay waayo waa waalida hadda dhaqanta baan oran karaa waxyaabaha hadda mararka qaarkood meeliyaha ka dhex socda video waxaan idin wadaa ah sidaad hore u ogeydeen Nuuca Yaasin Caraale laba xaafadood ayaa isku haystay walow xaafad kalena ay soo sadeexaysay saddex xaafadii afraad ayaa hadda maraysa inantii Nuuca Yaasin afar qoys baa u dhaxaysa qoyskii saddexaad baa afraad baa ku soo biiray oo iyaguna leh way naga luntay Nuuca Yaasin anigu yaabay idinku ma yaabtay wallahi 2020 wuxuu wataa mucjisadiisa ilaahay shirkiisa hana dhaafiyo وفنانتي Nuuca Yaasin Caraale ee dadka sharaf iyo ciise ku dhex lahayd bulshada laakiin hadda qof kasta markuu fiidiyowga uu arko kale uu yaabi dadkii arkeen kale way arkeen intii aragteen waa bay aragtayba wallahi anigu runtii dadka aad ula yaabay baan asxaabta qaaliga bal inteena Nuuca Yaasin u gudagelin iyo afarta qoys ay ka dhaxayso bal waxaan halkan aan maxay tahay ku xusay afartii hablood saddexdii hablood sorry asxaabta saddexdii hablood ee jinabadooda halkan aan soo gelin jiray janaka ugu horeeya waa أميرة حرسي صادقوا برتين إن شنكي جسوا بليو واحد كفاية إنسان واحد كاستمر كأتي عشاهي سيدا عن تكرنتا ولا نقول شيء هذا ربط عن تقرح بدنا نقول سكالو كرسو أم بني كذا أم بنفط هذا واحد كبرتها أميرة حرسي شنكي هذا كم بدك إيجس دونتا فوق شنكي هذا لا يقصر سكريب شير أصحاب شنكي كلنا ومن نجيب أضو برتين إن alaabada idii keento dhiirigelinta safarada alaabo badan bay keentaa guryaha fadhi haday tahay miis qado haday tahay hurdo haday tahay google haday tahay roogagii shopping marka waxaan keenin malaha halkana ka salaamaya holo ku yar baa ka xanisanay xalay ilaahay ku caafiyo mana oo ka yar dhakhtar kula jirta idinkuna soo duceeyeen wiilkeeda ilaahay caafimaad sareecan u siiyo markaas xabta qalay oo minijina ka sagay gudbay walaashay juweeriya jinakeeda booqda waa idin sheegayeen cunto karinta iyo saacateenta hadda rabtana saacatiisi ayadana daawo jinakeeda halka baa soo galiyay waana barkaysan magaceeda juweeriya ku yaacday maxaad sugaysaa saddexda janaba wax badan bad kala kulmaysan asxaabta aniga igu xiran waana jinakan ku yaacdaa saddexda jana markaan halka ka qaymaado kulaan waa yaabay idinkuna waxaan rajeynayaa inaad aad u qosli doontaan kulaan waxaan arkaa un qosol waan mahan media waxa ka socda musalsal shay musalsal la yiraahdo oo maaragtay familiyada musalsal ka dhigayba youtube-ki bari hore waxa jiray familiyo qurux badan oo daawan jirnay laakiin dad baa ka daba bilaabay baraankiiba musalsal loo bedelay marka bari hore baraank baan arki jiray laakiin hadda waxa darkasta wiiliga gabadh kale waa iskramnaa waa stoonina islaan leh inantaydii baa wiilkan siiyay de awal dhalinyartii ku koobnayd laakiin hadda waayeelka hooyooyinka meel looga dhacaya oo meelihii la soo fariisinaya dadkii sharafta lahaaba meel looga dhacaya waxaas waxaan arkaa in nusqaan tahay gabdhaha inta soo fadhiistaanay leh hooyadii baa wiil isiisay wiilkaasaa siiyay hooyada waxay leedahay gabadheeda wiilkaasaa siiyay adiga sharaf xumo ku tahay ma wanaagsan waxaas ceeb waxyaabihii laga qashqashoon jiray ba hadda meediyaha dhex socda dhex cararaya sharaf daraan u arkaa in gabadha Soomaaliyeed inta ka soo fadhiisato tiraado wiilkaas jecla wiilkaas waxaas naftada nusqaan ku tahay iska daayay dooran lahaa ma wanaagsana dumarkana ina qiimahooda hoos loo rido ma fiicna dumarkana waxaan la laamid qiimihiina hoos u ridina markaad rabto inaad wax samaysato dadaalata jacbaas ku gaadhaa adiga waxaaga leeymo taantigaaga leeymo yaa bariyaha waxa soo taanti baa leedahay waxa ma sameysay wax qurux badan hadda rabto youtube-ka soo geliso oo soo gelin kartaa adoo qof bila aadan u baahnayn adoon sameynaynin wax xun oo wax fiican sameynaya ayaad soo gelin kartaa laakiin maaha inaad maaragtay halka soo fadhiisato tiraado wiilkaas la siiyay aba hooyadii oo leh arinta hooyo ma ku sheegi kara laba dhalinyaro saaxiibaan baan arkaa waxaan meediyaha dhex yaacayo dhan way hooyo sharaf iyo ciise bay leedahay hooyo meel kasta joogto hooyooyinka Soomaaliyeed ilaahay baa karaamiyay karaamana alla korkooda ha ka dhigo laakiin waxaan leeyahay magaca haydiga dilina waayo gabdhii baad soo marteen wax walba waad soo sunnaysan haddana hooyooyinkii baad leedahay hooyaa gabadh wiilkaas siisay waxaas ceebeed ku tahay Soomaaliya waxaas aan waxaan arkaa ceeb wallahi weyn hadda gabadh walba nin doonaysa masaajidka iska xaadariyo waxa tiraahdaa nin baan rabnaa
sheekha markaa qodqodanaya markaa wiil baa laydinka soo xulaya taasi waa aragtideeda waayo waxaa diidayaa in gabadh Soomaalida qurux badan maasha Allah inta ka soo fadhiiso tiraado wiil baa laysiiyay wiilkaas la dhisay ay markaa tiraado wiilkaas la dhisay video-gu meesha kugu jiraay wixiina haddana baraanka noqoto waa may kula qurux badan tahay kula aniga lama qurux badan inta ila rayga isku fikirka nahayna xaq hoose ay geliso wadaagto waxa soo kale wax laga yaaqsoodo weeyaan wax naftaada loo qooro maaha inaad fiis waxa dhaafsato leedahay dadku ha ku bartaan caalan noqdaan dadada la taaj abaas buu gaadhaan adduunka taajirinta aad arkaysaa waxa hoose ka soo bilaabeen marka adoo wax quruxda soo gudbin kara wax fiican adoo sameyn karaya sharaftaada hoose ha urgin sharaftaada hoose ha u dhigin qof yar bilaadan oo adiga kula mid ah sharaftaada hoose ha u dhigin qofka niba shalay sida adigu taan buu ahaa qof walba loogu ka soo bilaabaa xagga sare u gaadha taas dhibaato kuma jirto laakiin waxaan leeyahay gabdhaha Soomaaliyeed iska daa sharaf xumada sharaftina kor u qaada ilaahay bay idin karaameeyay karaamo alla idin karaameeyay iska daay waxaana ka dhaxwadaan meeliya inta markaa kaga imaado aragtideeda in asxaabta qaaliga Nimco Yaasin Caraale waxaan daawaday waad ogeydeen laba qoys hore isku haystay haddana qoys kale ku soo biiray haddana waxaan arkay qoys kale ku soo biiray bal qoyskaasaan eegi doonaa iyaguna waxay leeyihiin Nimco magacay ula baxeen iyo taariikhda ka luntay bal aan wada daawanay ila daawada idinka qosol u dhimanay tan dhaxdu way dhaafto way qosol dhaaftaa qoori marka gabadhan maxaad u malaynaysaa maxay idin soo deydeen weyday way lunta marka ama Sacad Muuse ha ku ogeydeen ma hawiyaha ku idba kuma idaan bal hadaba ummadda waxaynu leenahay ilaahay dartii u soo caawiya waa shukri cabdi aadan taasina waa Nimco cabdi aadan ومن عبد آدم شنشركيدنا ويكا قلنا إلهي درتي ما أنت هالله سو خبطه ورباها انتهى قربنا ولا لما نقباها قرب يجا شبه نقطة مركا واحد رتمين ودنك ها إنجليز كعتقطه أودي أنا درجة مسين ودنك هاجن هرجسي شفت دقوق أودي أنا درجة قاعدة مركا جوادن محد لينسا محي إدي سوديتين ويدي وين marka ama Sacad Muuse ha ku ogeydeen asxaabta qaaliga waad u jeedaan qofka dumarka hooyada marka waayeelka ah iyadana waxay leedahay Nimco Yaasin waa walaashay oo aamina laba leedahay waxa rabaa betri aaneegno layga qaado war anagu yaabnay ma yaabteen waxa anu aabahay la yaaban ayuu aabahayna aabihii keena anagu tii hore laba yaabanba ay sheeko kala soo baxday runtii inta ila aragtiya komanka xagoosay la wadaaga anigu waxaan ma arkaba wallahi billahi baraankeeda socdo waxa ka daranba baraankan ka socda inta Nimco Yaasin ku socda ayaa baan anigu la yaaban sheekadan oo wax laga dambeeyaa wax inantan maalin walba qof qabsanayo la aniga dhalay inantan qof walba ma iska dhalan waa yaabe waxaan aad uga xumaa hooyadii aabihii dhalayna taas ee sharafteeda dhulka la galay سورة سحبت حافظي قصر يسح قرقراعي صادت قرقراعي دم قشان كل قصر وحلا قرقراعي مركز سحبت قالي قاو حلين دولي يا بنهاي هو يدي كدلي يا أبي كدلي إيش كسولي كيسي هدي شرفتو دي مارت أنا كلاش مالي بهدور غير كشفت هذا موضوع الباطم سكرع بتوايا هذا مالي بمر غير كشفته أنت أصحابي حكى على هذا هو يدي الشيء له هون حرستو أنا اللي متعب أنا اللي يديك ولا هو يدي أنا بحلي أديك الله دراتي شداك اسكنار خيركنا لا جوج قبيله محمد هيرا قبيله الصومالينا waa isku mid ilaahay agtiisana waa laga sameeyay ilaahay agtiisa waa laga sameeyay qabiil wax dheer ma jirto Soomaalida qabiilka iska deeso saxabta ka xumahay meeshan aan karkaraacaya waxaan halkan aan ku soo gudbinay fiidiyogiina daawateen baa rajeynaya waxaan ka soo diray qaraacada si badan marka fiidiyogiina soo jarawayeen saxabta qaaliga ah aad baan uga xumahay waxaan maartay meeliya ka dhaxsooda Nimco Yaasin Caraale waxa la sidaas isku dhaaf in istilbashadu ay sidaan si maahay la maalmo walba reer ku sheegan maayaan adiga iyo kale ma waxa tala maxaa la haystan maqal jireen qof kasta bay iska leeyahay baa tahay meeqa qof adiga ku dhalay waxaas waa ceeb wax laga yaqsoodo weeyaan Nimco Yaasin ay runta sheeg adiga la dhalatay aniga markuu qalbigayga aragtideeda waxaan arkayo intimirkiigno ay siinay adiga la dhalatay ولا شيء أنقو ولا شيء سكرتو قبيل حمد ديرة سعد موسيقى بوينا ويسكم متحس مديرة هو يا وضع الشيء عبا وضع دلالة سلام بلوط على وضع الشيء لا هيك تسنوا على قسمه مركا حقولي غير كين أنقو غير كين سكرتو شيتاك سكنها والد كي كردالنا
sharaftooda iyo karaamadooda dhulkaad la dhacday maanta oo kaa hooseeya halkaad waalidkaa u ducayn lahayd ayaad maanta kolba qof ku leeyahay annagaa dhalnay annagaa dhiig ka qaadanay waalidkaabaad meel uga dhacdaan arkaya asxaabta qaaliga videogan quruxda badnaa kaa soo dhamaaday haddaad videoga ka hesho waxaan kaa codsanaya like saar subscribe share comment-kuna waa dhiirigelintaada aragtidaadana waad nagula wadaagi kartaa xagga hoose waxaan leeyahay sidaa iyo ammaano alleh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu